waxaa maalintii saddexaad si habsami leh uga socota dhammaan deegaanada iyo tuulooyinka hoos yimaada gobolka Sool diiwaangelinta codbixiyayaasha Soomaaliland iyadoona dhammaan shaqaalaha komishanku ku sugan yihiin goobihii loo cayimay. waxaa ka mid ah deegaanada ay sida xawliga uga socoto diiwaangelintu degmada Kalabayd, Xidhxidh, Dhumay iyadoona dhammaan goobahaasi ay kormeer ku tageen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax, wasiiru dawlaha nabadeynta iyo horumarinta Soomaaliland iyo sidoo kale xildhibaan Dhakool isaguna gudoomiyuhu iska diiwaan geliyay mid kamid ah goobihii ay diiwaangelintu ka socotay. waxaa la arkayaa dadweyne aad u tiro badan oo safaf ugu jira sidii ay u diiwaan gelin lahaayeen kuwaas oo diyaar ah inay muujiyaan codkooda iyo cududooda. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa markii uu soo dhameeyay kormeerkiisa ka warbixiyay sida ay shaqada diiwaangelintu uga socoto dhammaan deegaanadii uu soo maray iyo ammaanka guud ee deegaanadaasi. waxaan maray safar diiwaangelintii dhowr meelood baan maray. waxaan ka bilownay qaydarka si fiican bay uga soconaysay. waxaan tagnay Kalabayd oo 4 seeji yaaleen. waa ka baxnay waxaan tagnay Dhumay, waxaan tagnay Xidhxidh oo iyadana 3 seeji yaaleen. si fiican baa diiwaangelintu u socotay. dadkuna si fiican bay u soo baxeen. waadna arkaysaa waxay ku la socotay nabadgelyo si fiican nabadgelyo